بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان بهوينت الصوماليات ينتف صوماليا كو هذا الشيء كو حرن برتا يوتيوب كي channel فيسبوك ما تكلي وحنا دين هينا ما أنت ورثي هذا حساب بدن أنتي سبورتيكا وحكا قرنيسا يا أنتي سبورتيكا دونيسينا ما توحيا بدن كوات سبورتيجي مركي هراء قرن كصوماليا ودسنا وسكوت دبنا وحان شري سبورتي وين أو جودهان عيارها عالمية يوكو أفريقيا وكقيب قات لكن دا يرتينا إما كأنتي سعشنات كي للشيء عدالي رضي مكتلك هجامية وحيالا بدن حالك سبورتيجا قرن كصوماليا وجاري يهرر كيسي كردونا يلتشنيس كي برجع وعياري شري يهرر كي كبدعكت كجارين أقوم فرا بدن ملاح dad badan oo imaka kubadda dhalinyaro badan oo xiiseysa oo kubadda ciyaarta ayaa waxay doonayaan warbixino badan inay ka helaan heerkii markay Soomaaliya ahayd fanku ahaa ee dawladda ahayd ee Soomaaliyeedna badan isku duubnayd bal heerar badan oo ay gaadheen oo xagga lacagta iyo xagga dawladda iyo xagga quwadaha iyo xagga dagaaladaba meelo badan baad ka aragtay waxaa dabcan markaasi aad hor badan u weydeen ama inkastoo bariga kamarduhuna yaraayeen miidiyuhu oo aad u yaraan meydaan sahelin fiidiyoyo badan ama warbixino badan oo bal heelkii qaranka Soomaaliya ee kubadda cagta iyo isboortigiisii orodada bartii heerarkiisa kala duwan intiina badan waxa soo xasuusataan oo taqaanaan Cabdi Bilal marka la yiraahdo nin ordiyahana oo ahaa adduunka heer ka gaadhay oo ahaa Soomaali oo ahaa fiidiyoyada badan oo ku aragteen bal haddaba Soomaalidu kubadda cagta heer inteen leeg ayay ka gaadheen yaa hogaamin jiray imsa kooxood baa ka jiray kooxuhu heer inteen leeg bay ciyaari jireen in dawladaha kuway la ciyaareen wax maanta garabkayga bidix fadhiya legend Ismaaciil Caydiid Jamaica oo ku magac dheer oo kamid ahaa ciyaartooyadii xulka qaranka Soomaaliya nasiibka u yeeshay inay kamid noqdaan isaga iyo niman badan oo saaxiibiin xulka qaranku uu ku horeeyay laakiin isagu wuxuu ahaa dhalinyaradii ugu dambeeyay ee xulka qaranka Soomaaliya markiisii heerka ugu fiican uu marayay uu ku gabagaboobay kuna baabay dabadoodna aan ku badal ciyaarin Ismaaciil ku soo loo barnaamijka إسماعيل عديد هذا إسماعيل نانستادن جميكا الجودة أديات بده هرتوق ما هتنتهي جانس كان إيو فرصتن أرنوسي سئناد بالنوغا ورهنتو وحيد سو تاغنيد إيو وحياد مقشي برنامج كان حكو سابسانو دونا هرتو جودهان سبورتس كيدل كسوماليا انتي عاد ياريد تدكيات شعلي إذا دكتي واحد كمغلي جرتي إيو واحد كوب جوب واحد واحد مرتي مال مفرح اللي إيو مال ممرقلي قول يقول درحبا هرتو مركاغو هوري waxaad soo ciyaartay kooxdii madbacadda qaranka waxaad u soo ciyaartay funk ka soo bilowday kooxda gobolka Banaadir marbaad u safatay yaraantaadii dugsiyada markii dambena qarankaad u safatay waliba waxaad ka safatay afka hore waxbarashadaada Muqdisho aad ku soo qaadatay bal adiga oo bayskaagii hoose nooga soo bilaabaya kow xageed ku dhalatay xageed ku barbaartay sidaas u bilowday sportska أنا أقول شيء قال لي بربرة وقال حبيتك بربرة صار لي قلت راح برليجي هل كان زكوا برباري تكسي القرآن كقلي أبغى أسكت جوري سدراوش بريق الصومالي سود السمين حاجة اللي بدي دراوش أكو برباري صار لي رجل ليجي سكول دكسي الحاكة دكتي دكسي الحاكة عيالي وحد دكتي دكسي الحاكة سكول يحتر oo xaafadooda ku yaala halkaas ablaabada marka dhigi jiray iskuulkaas koobkan u qaadi jirnay inta badan gaasir badan xaafadda ku soo wada koray iskuulkan dhigtanay oo ciyaar yaqaan oo iskuulka hodan ku dhexeeyay markaas iskuulka ciyaar jirnay marka ciyaaraha iskuulada marka la qabto ardadeer waa ka gudbay waxaan ciyaaray kooxda Flamengo koox khatara oo dhisanayd Soomaaliya aad loo yaqaan especially magaalada Muqdisho aad loo yaqaan xaafadda ka dhisnayd xaafadda ka dhisnayd Flamengo marka niman badan way dhinteen loo naxariistay dadaan kala dhicin bay ahayd kadib waxaan ciyaaray degmada Hodan oo markaa aan deganaa oo anoo iskuul dhigana xataa diiday oo leeyahay markaa because dadka sportiga aad bay u jeclaayeen waxta difoosyaasha iyo cid walba mataqaanay daba taagnaan jiray oo dhihi jiray war hooyada hala xiro سأصبح يعني دقمة هون وعيال
kadib waxaan ciyaaray secondary schoolkii aan dhiganay banaadir oo 2 goor koob aan u qaaday keligiina maahay rag badan oo ciyaartooy ah oo kooxa fiican ku jiray sida wagad oo kale iyo iyagana dhiganaya iskuulka halkaasaan kasoo bilaabay kadib secondaryga anigoo dhiganaya waxaa la qaatay koox la yidhaahdo wagad intaana madbacadda tegay junior ka noqday macalin giftina lahaa ilaahay hadaaye ninkaasaa waxay baray aniga wuxuu la tegay wagad hadda wuxuu degaya atlantu degaya nin aad macnaha kubaddiisa u heersanayso kubaddan aan ciyaaray soomaaliduna aada u jecel yihiin aniga mataqaanaa magacaan ku yeeshay waa ninka ka dambeeyey waxay baro ahaa gobolka banaadir goormaad ciyaartay isaga intaad qarayn kooxda tigi ya waxa jira jirooyin qofka banaadankii markuu kubadda ciyaaray wuxuu soo maraa qofka wuxuu soo maraa iskuullada inaad ciyaarto weye kadib waa inaad dugsiga sare ciyaartaa kadib xaafadda ciyaartaa kadibna waxaad ciyaaraysaa junior baad ciyaaraysaa isla markii gobolka banaadir baad ciyaaraysaa adoo juniora sometimesna waxaa dhici karta qofka isagoo juniora in automatic ziraa u galo oo markiiba ziraa galo marka adigu markaad gobolka u ciyaartay gobolka banaadir intee lag dugsi nagatay markiiba ma laga maya waa hal game keliyaan ciyaaray ciyaarahaas gobolada hal wareeg keliya ciyaaraysa wareegaas ma guulaysateen mise maya kumana guulaysa wareegaas ismaya qaadatay marka madbacadda qaranka wagad baan qaadatay wagad baan ciyaaraha macalinkii waa ka tegay wagad madbacaddu wax soo baray markiisa hore 1977 heer koowaad baa hadiyadu heer koowaad baa koox adag baa marka ciyaartooydii marka waxay noqotay inuu kooxdii ka tago macalinkii ciyaartooydii uu kaansaday inuu qaar qaatay noqotay qaarna waa ka harin anigu kuwii raacan ku jiray madbacadda la tegay saasa madbacadda ugu ciyaaray oo jaamacadda ciyaaray xitaa anoo madbacadda u ciyaaray oo professional ayaa jaamacaddan dhiganay Nigeria jaamacadda Nigeria 3 sano koob u qaaday laftigeeda ismaaciil markay bartaa inoo marayso imanka oo kale watan adduunkii oo kale kubaddu qarash ba noqoto ciyaartooyda waa la iibsadaa lacag baa la siiyaa mushahara markaas oo kale dee heerkaas oo kale midna soo gaarin oo marba marka dambeysa kubaddi ganacsi bay sii noqonaysaa laakiin berigaa hore aad madbacadda u ciyaaraysay gurno ama mushahar ma la siin jiray ciyaartooyga kooxdan u ciyaaraya madbacadda kooxo way kale mushahar badnaay madbacaddu waxay 3 hay-ado oo ugu lacagta badan ee Soomaaliya isku tegay waxaa loola jiray madbacadda bangiyada iyo caymiska marka NBC club baa la isku oranay marka waa hay-adda ugu lacagta badan waddanka 3 hay-adood ugu lacagta badnaa waana kooxda ugu mushaharka badan baa inta qaadan jirtay waqtigaa waxaa qaadan jirnay mushahar ahaan 15,000 oo Soomaaliya lacag aad markaa u badan lacag aad u badan bay ahayd waxaa kaloo aan lahayn gunaha kooxdu 3 xilyaal bay qaaday waxay ku qaadeen wax kale ma ahayn waxaa joogay tababaro Ugandesa marka kooxdu markii ay maalintay badiso waxay leedahay 5,000 oo dheeraad 5,000 bay leedahay maalinta hadday badiso 5,000 shilin Soomaaliya hadday bareejo galaanna waxay leeyihiin 2,500 dawadayaal bartaan xasuusiyo waxaan marnaa imika sanadkan barnaamijka habeenkan caawan marayno waa 2020 bishiisii 14 marka 5,000 shilin Soomaaliga maanta qiimuhu taagay waan garanaynaa bal ismaaciil marka 5,000 ee maalinta la idin sii jiray kunada quraata waxay maalinta badisaan bay ahayd lacagteena maanta markaad qiyaastan joogto ilaahay baa cibri ku dhigay bartaayo maanta waad qiyaasi kartaa maxay u dhigmaysaa maanta ashabta kumbiriga haddaad eegto waxay u dhigataa adigu $500 $500 oo maanta gunaha markaa badiso ilaahay caqliga ka maqan way waxaad timid kooxda madbacadda qaranka marka macalin yahay waxaa kooxda madbacadda David Otieno oo Ugandesa nin loo Manchester United u dhintay coachka labaad ah way markii ma xasuusataa marxaladii aad ku timid kooxda cidii ku soo shukaamisay cidii ku soo dhiirigelisay cidii ku soo jeclaatay inaad kooxda timaado saada didaal kale may kooxdu niyo koox halis way kubaddan hadda dadku anigu adiga arko inta badan kubadaha ma daawado kubaddan ciyaari jiray waa kubadda waxa ugu dhow u ciyaarta Brazil waxa laga ciyaarayo Barcelona kooxda kubadda marka waa si deepka marka kooxda imaanshaheeda waxa aad igu sii qalqaaliyay oo iga hari waayay macalinkiina maadaama macalinkaygu ahaa kooxdiina uu ka tegay haddana mar labaad kooxdii intuu ila yimid uu ka tegay inaan joogo igu sii qalqaalinayo waxay ahayd nin aad hadda xabar muddadii dagaalada maartay 19 aad looga bartay Cabdiqaadir Xayir Allah yarxamo ilaahu naxariis oo nabadii aad mataqaanaa
ka shaqayn jiray nabadda iyo oo aada nabadda loogu bartay luqadda realdis markaasi aada u timid kooxda madbacadda qaranka horyaalkii Soomaaliya taariikhda maxaa soo tahay taariikhda waa xusuustaa taariikhda kulley markaan imaanaya ka hadlaysa markaad imaanaysa kow markaan imaanaya nolostada markii wagad laga soo qaaday waxay ahayd 28 ciyaartii ugu horreysay aad kooxda madbacadda qaranka u fadhiisatay kursiga miiska sugitaanka ciyaartooyda lagu siiyey mise maalintaa waad safatay ciyaartooydu waxa weye waa kala sidaa loo kala jeclaan dolo ma garanayo laakiin anigu weli waan jeclaan jiray aad baan u jeclaan jiray ciyaartoyduna kama faanto binji halka la fadhiisto way ka ciyaaraya ka fadhiyo waa isku mid laakiin nasiib uma yeelin inaan weli fadhiisto ilaa maalintii kugu horreysaan ku maalintii kugu horreysad kooxda weli ma fadhiisto line-upkaad ka gashay weli ma fadhiisto toleera way ma xasuutaa goolkii kugu horreeyey maadaama afka hore horta 2009 buu haysama aniga 11 oo ka ciyaari jiray laakiin madbacaddu waxay u ciyaartaa double strike waxa la laba sagaal laba afka hore marka mid kamid ah koonay baabiyan labadaas mid kamid ah laakiin 11 ka xasuusan waa afar laba fanaanada noocyada ba qaadan jirtay blue bay ahaan jirtay habeenka dambe kulle aan ka sheegsan doona ku tusi doona sawirada waan hayaa insha allah blue iyo blue liidma leh iyo ku ciyaari jirtay blue liidma marna waxay qaadan jirtay xasaan marna xasaan bay qaadan jirtay bal guud ahaan hataad inoo guud marto kooxihii markaasi seere eed ahaa iyo waagaasi aad timid 1982 imse kooxood bay ahayd kooxaha Soomaaliya dhowr iyo toban koox bay ahaayeen yaa ka xasuutaa waxaa ka xasuutaa Munishibi oo kale Horseed Wagad Waxool Sancada Dekedaha Fiyaad oo kale الله مستعان قاعدين كان استيد سوق قادنينا qofka bini'aadamka caqligiisu de marar badan waa in badan intuba magaalada caasimadda muqdisho ka intuu oo markaasi garoonkan weyn unba home iyo weyba u ahaa labadaba طبعا يا وين هو مش الوياج وين وقالوا كان في كوين قالوا كان في كوين وي بل انتينان ان داودل waxay noo soo socdaa bal xulka qaranka iyo Ismaaciil sababta uu galay laakiin waa xool marka madbacadda qaranka marka joogtay liigaga ama horyaalada Afrika ma qayb gali jirtay xakii lagu qaban jiray marba waddan baa lagu qabtaa macnaha sida Champions League oo kale oo marka afarta kooxood ama labada kooxood ee Soomaaliya ugu soo horeeya ayaa ka qayb gali jiray way bal nooga yeeshay markaasi badanka kooxii bixi jiray marka waxa isku dhici jiray inta badan ama Afrikada ha noqoto ama wadamada mataqaana ay sheegay Central Africa iyo East Africa badan isku dhici jireen Champions League Africa marka la ciyaaray kooxaha ugu kulul marka badana waxa berigii hore xilliyadii hore waxay ahaan jireen oo kale KFC oo kale Kenya ka dhisnay Gormahiya Soomaaliya Horseed baa markaa ka dhisnay oo Horseed baa inta badan isgaraaci jirtay oo ka badan jirtay waxaa ka dhisnaa Tanzania Red Devils oo la jiri shayaadiinta cascas marka aduu Kampala City Council baa ugu kululayd marka la eego kooxaha noo soo xustay dhowr iyo tobanka kooxda Soomaaliya saddexda kooxood ugu cadcad had iyo jeer kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad isku cubirsan jiray xagga dhibcaha badanka yaa ka mid ah xilliye kala lahaayeen intii 80 la soo geliyay 70 ilaa 80 waxaa inta badan ku looleeg jiray Horseed iyo Jay ayaa foodis gelin jiray labada koox ee ugu khatarsanaa bay ahayd 80 waxay ka dambeeyay kooxaha markii kooxaha ugu cadcad khatarta leh waxaa jiray Munishibi iyo Madbacadda marka Horseed iyo waa laga tegay macnaha laakiin iyagu waxay lahaayeen 70 ilaa 80 wixii ka dambeeyay ilaa laga soo galayay dee intii burburka anigu burburkii maan joogin mugta waa ka tegay marka intaas waxaa lahaan jiray Munishibi iyo waxa isku haysan jiray Madbacadda waa labada koox waxay ahaayeen kubaddan badanaa laga ciyaaro
Spain oo kale iyo Brazil iyo labaduba ciyaari jireen. Munishibina waxaa macalin u ahaan jiray nin la yidhaahdo Charles Comi oo Gahanes ahaa. wareegga Soomaaliya marka gudihiisa la eego ciyaartooyadii kooxda madbacadda qaranka kala ciyaari jiray yaad ka xasuusta dhiman badan nin dhowr jeer aan la hadlaa jira hadlaa Murida Bata Bunur waxaa jira nin kale oo Kanada degan oo la yidhaahdo Maxamed Xuseen Majabe oo kabtan ka ahaan jiray kooxda inta badan kabtan ahaa nin kale oo isla xiriiri jira hadda u dhintay Allah raxmo cabdi la yidhaahdo Soomaaliya ku dhintay waxaa jira Xaseela in loo isagana hadda degan ingiriiska degan Bilaa Cali Xamaani oo London degan nin kale oo Factor la Cabdiraxiim Factor oo hadda degan isagana iyo Tobori ninka Tirol degan baa jira isagana Macow la yidhaahdo way badan yihiin hadal ilmaha kuma jiro haddaan dad ka tegin kulle laakiin inta qaar kale way joogaan xamal bay joogaan qaarkood madbacadda qaranka intii aad Ismaaciil u ciyaaraysay ciyaartooyo badan baa jiro oo dee line-upka kaala safanayo oo 11 ciyaartooy ugu fiican ka mid ahayo ciyaartooyo badan oo maanta hadduu dhaawacan yahay ma xanuunsan yahay kooxdu aad uga warwartaa jiray marka adiga lagaa yimaado yaa ka mid ah kuwa kooxda nin loo waxaa jiray Cabdullaahi Maxamuud Sarxaan Eno oo dee wuxuu ahaa one of the best wuxuu ahaa wuxuu ka ciyaari jiray afka hore isagana Cabdullaahi la Finland degan yahay waxaa jiray ninka loo isagana Murida Bata Bunur isagana ingiriiska degan koox kale dhacaysa macnaha ma ahayn ninka loo cadii kara lahaa jiray isaga kaga weeyay kooxdu koox kale dhacaysa hal qof hadduu ka maqan yahay laakiin kooxdu waxaa jiri jirtay had iyo jeer nin iyo laba maanta hadday maqan yihiin macal kooxaha kale usoo haleelanayda maanta aan ka faa'iidaysan hebel baa fadhiya lacag inta badan afka hore markii laga maqan yahay sanaaloo kale Maruudig oo kale ninkan aan kuu sheegay Cabdullaahi Sarxaan Eno oo kale way tabi jirtay macnaha niman kale ugu horreeyaa jiray khatar ahaa oo Cabdibaari loo isagana sababka ciyaari jiray oo Kanada degan hadda nin kale waxaa jira isagana loo Dooley la yidhaahdo oo degan isagana Australia waxay ahayn kooxaan kale dhicin bahay nimankaas waa nimankii positionada macnaha aan isku bedelnay way ciyaartooyadii kale haddaba kooxaa kale u ciyaarayay kulle aad u nin weeraraad ahayd ma jiraan ciyaartooyo markaad kooxaa kale aad iska horimarsaan horta kooxdeebaad maalintaad la ciyaaraysaan aad uga warwari jirteen xagga aniga ma xilligayga marka loo xilligaag baan ka hadlay xilligayga marka loo kooxaha macnaha aan isku ciyaarta ahayn aadka macnaha aan isku hayn jirnay iyaguna wadnaha farta ku hayn jirnay idinkuna aniguna aan mataqaanaa waxay wadnaha farta ku haysay Munishibia la dhihi jiray Munishibia nin Gahanes wata isagana Charles Comi difaacii kugu khatarsanaad ka hor timaad ma xasuusta nin aniga nin aad khatar waa Allah yarxam hadduu ku dhintay Allah naxariista Axmed Qadar baa la dhihi jiray hadda xamar buu ku dhintay difaaci kugu adkaayaad wajin aad jirtay adag buu ahaa goloyey ama goalkeeper aad isaga laftigiisa kubaddaad ku laagto warwar badan ka hayn jiray goalkeeper ninkaasaan ku sheegaya kule kooxda Munishibia gool ahaa jiray ayaa aad u kulaa Ismaaciilow kulle badweyn bay ahayd kubaddii cagta dalka Soomaaliya ciyaartii ugu horreysay aad baxday aad tagtay dalka dibaddiisa aad ka ciyaarto ma xasuusta nin waxaan ku ciyaaray ciyaartii ugu horreysay bariga bartamaha Afrika Nairobi baan u baxay waxaan la ciyaaray koox la yidhaahdo Red Devils waxaan la ciyaaray koox la yidhaahdo FC Leopards Kenya ka dhisnayd waxay ku dhisnayd wareegii Afrika taas Champions League ma guulaysateen mise maya barbardhac baa anaga iyo ku kala baxay goorma lagu qaatay ciyaaraha qaranka Soomaaliya waxay ahayd 1985 markaasi ilaa goormaad ka tagtay waddanka waxaan kasoo tegay anigoo ciyaarihii bariga bartamaha Afrika waxaan ku baxsan 7 ciyaartooy baan ahay may taas waxay noo dambeysay laakiin taariikhdu uga maxay waxay ahayd 1988 bahayd 88 saddex sanabad qaranka Soomaaliya ahayd qaranka Soomaaliya markii lagu qaatay maxaa dareentay والله هو مسؤولية وين وحير معها كل كوحدة اللي كوكو بيسا واي ضد ومضى بعض وكيل كتاي موس وبقى لبن بتليسا موس نبكي هذا لا بقى ولز بدن باكو صار ما قاعد بتليسو سكدا قرر يعني سداد كوكو بحيث تبدي تليسو أيام مسؤولية وين كسرت وكوحدة يجوش دي معناها ولو وين يوم بس كوحدة يدي وضد كي كبحضه magaci Soomaaliya dhinaca telefishan soo waxa la batay 1985 kala mid ahaa xulka qaranka ee bariga Soomaaliya metelay iyagana yaad ka xusi kartaa rag badan ku jira waxa ku jiray nin loo Zaki Balil oo degan Ingiriiska waxa ku jiray Muriidan isku kooxay
waxaa ku jiray caddi kirnilolaho, waxaa ku jiray allahu mustacaan cabay nilolaho allahu naxariista oo dhintay, waxaa ku jira xama cabaas nilolaho oo hadda ku xanuunsan minnesota ku xanuunsan, ilaahay caafimaad siyaa leeyahay. rag badan oo mataqaana ay sheegay waxtar la ka buuxay. ma islahayd berigaasi kooxdaasi matalaysa xulka qaranka Soomaaliya waa intii ku munaasibka ahayd adigu baad soo xullayd mise niman badan oo ka fiicnaayo la misteegay baa lama oran karo because waxaan waa iska chance waa nasiib mugti lama oran karo because waxa weeye ma qiyaasi kartid haddana marka kooxaha laga soo xulayaa mugti marka adigu ma joos garaysan kartid talama ku haydeen guddidoo kale inaad raadeen hebel kusoo dara way yaa beriga Afrika hore kala ciyaari jiray kooxda waxaa ka ciyaari jiray rag badan baa ka ciyaari jiray waxaa kamid ahaa Eno oo kale Murudiga oo kale waxaa kamid ahaa Allah mustacaan ninkaas Axmed Cabaas ku sheegay Umar Cali Suudi la yiraahdo goolkii ugu horeeyay xulka qaranka Soomaaliya u dhalisay xasuusta kii ugu dambeeyay labada goolkii ugu farxadda badnaa xulka qaranka u dhalisay xasuusta gool qofka bini'aadamkii hadii jeer saameyn ku leh markuu koox ama dal adag la ciyaarayo kale gool aad leedahay kooxda beriga guulna way ku gaadhay ama barbaray ku keentay oo xulka qaranka Soomaaliya wax weyn ugu fadhiyay ma xasuusta adoo u dhalisay laakiin kooxdeedan xusuustaa sida Sacuudiga loo ku ciyaaro ciyaaraha holeelada carabta ciyaaraya marka Champions League oo Afrika loo ka qayb galaa Champions League Arab loo ka qayb galaa waxaa Soomaaliya maadaama carabna ay sheegto Afrikaan ay dhahdo waa kula socda marka Sacuudiga ku ciyaaray الهلال كوحل السعودية اللي مركا جامعة انت دوغ الله ذكرنا الهلال ها مركا كوحدة سيه كوبد مركا لي سودي بنور من لي سودي والله ما كان بحي بنالتي مقاعدة أفكار ما موت أنا يقولوا لك اليوم كل كل واحد اللي يقول بريديا اللي ساسا بالبلع كل نقط دي الكرة سيو أو شاسي ما إلى بكريس xulka qaranka Soomaaliya ciyaarihii aad doolka la ciyaarteen yaa la ciyaartay Sacuudiga marba la ciyaartay Sacuudiga oo kale Kenya Uganda Tanzania Malawi oo kale Egypt Masar Sudan iyagu waxaa loo ciyaari jiray oo ciyaaraha Afrika marka kooxda laga yimaado isreebreebka koobka adduunka la ciyaari jiray koobka adduunka waa la ciyaari jiray koobka Afrika waa la ciyaari jiray bartii ugu durugsaneed gaadheen halkee kooxaha beriga 1970 baa ugu dhaweyd beriga ay gaareen 1970 ka soo noqdeen wareegii labaad ka soo noqdeen 700 ilaa 78 inay ahayd baan marinay beriga wuxuu ciyaarayay ninkii beriga dhowtay dhintay سعيد وعلا عزيز الله كوريا سعيد وعلا one of the talent you are ninkii ugu wanaagsanaa laba jeer oo kamid ah 10 Africa noqday 10 Africa laba jeer noqday ilaahay naxariistay janna ka waraabiyo oo dadka taalooyinka kubadda cagta Soomaaliya lagu xasuusan karo in loo dhisay insha Allah bismillah arintaas maanta kala adag saaranta inaad hawlka shida Sparky Sports kaayo aad isku tagtaan nimankiinu ninka taalo weyn ma wacyi gelin ma wadna insha Allah bismillah umadu meesha ka haysto sport Ismaaciil Bergaad Sacuudiga la ciyaarsan Sacuudiga iyo qolooyinkan kale Kenya iyo Uganda iyo kulli qoladiiba kubadooda aad iyo ku adkaayeen ma hadda misalan anaga kooxahan marka kooxaha Afrika la ciyaarayno bacdo kale aad bay iska celin qaranka Soomaaliya ma qaranka waa dad inta badan la isku keeno mugti marka qaranka waxaad leedahay mar walba kooxda qaranka markaad madbacada ahaydeen baad ka tayo fiicnaydeen koox walba macnaha labada koox hadda yani waqtiga ciyaarayay Munishibi waxa uu adkaa iyo madbacada oo kale beri waxaa jirta Nairobi ku ciyaarayay ciyaarihii bariga Bartamaha Afrika oo ka ciyaarayay annaga iyo Al-Ahli koox loo Suudaan oo khatar ahayd iyo annaga madbacada isku dhacnay Afrika waxaa la Nairobi oo dhan 10 kooxood baa jooga marka ciyaaraha bariga Bartamaha Afrika halka ciyaaraynay maalintii joornaaladii meel waxay ku qoreen labadii koox ee Brazilianka ciyaaray way kubaddan ciyaarna kooxdaas Ismaaciil marayna labadiina maalin ka feemalkooda cabin waxaad iga sheekaysay inaad koox Jarmal ah oo Bayer Leverkusen ahayd inaan filayay inahayd saas insha Allah kulli kula ciyaartay xawar beetimaa
madbacadda la ciyaartay madbacadda la ciyaartay kadibna qaranka la ciyaaray marka madbacadda markii la ciyaartay horyaalka haysatay waxaa kooxda horyaalka haysata la ciyaaraysa kooxda horyaalka haysata markii la ciyaarto qarankana waxaa ku jiray madbacadda 9 qof marka iyagu qaranka ma ciyaari karaan baa layidhi lama ciyaari Bayer Leverkusen beriga waxay ahayd kooxdii Jarmalka horyaalka Jarmalka sidatay oo Afrika maraysay marka anagu kooxdaas waxaan uga badanay 2-1 madbacadda ka badisay qarankana barbardhac bay noqdeen 1-1 qaranka barbardhac bay noqdeen waa mid xasuusteeda leh kulli Ismaaciil waxay idin soo gudbin doonaa sawirro badan oo ka muuqdo oo in labada kooxood marka kooxda Bayer Leverkusen la ciyaarayeen markii Sacuudiga qaranka la ciyaarayeen Ismaaciil imika waxaan weydiin doonaa bal xulka qaranka Soomaaliyeed markii dambe isaga iyo 7 xubnood oo kale xulka qaranka oo dhisan ayay iyagu ka baxsadeen wuxuuna soo galay dalka la yiraahdo Sweden oo maanta Ismaaciil ku sugan yahay Ismaaciil oo guntii gabagabadii kale barnaamijkeenu ku dhownahay sidii arrintaas u dhacday watii xoogaa buuq ku jiray oo beriga SNMT waxaa bilaabmay marka waa 7 kan filaya marka xoogaa politician bay marka 7 ciyaartoy baan marka waxaan ku tashanay waxaan inuu dhibka loo adkaysan karnaa xagee joogtaan xamar baa markaa joognaa anagu waxaan ku xareysanaa istaad muqdisho hotel ciyaartoydaas ma xasuutaa nuur amin baa kamid ahaa xaseylaan nillah kamid ahaa shaafici nillah kamid ahaa cabdilxiin facto haddii tubuurdiga baa kamid ahaa nin dhinto cali yusuf la yidhahdo allah yarxam yaa kamid ahaa waxaan ku tashanay ninow dhibka dadka lagu haayo reer waqooyiga macnaha wax loo adkeysan kara macnaha maaha dad badan oo dee guryaha lagala baxay waxaas ay arkayna marka waxaan ku tashanay ninow meesha joogis male marka at least in aan dadka u hadalno waa baxnay marka ciyaarihii bariga bartamaha afrika ciyaarin waxaan ku sugnaynay Kampala markaasaan waxay noqotay inaan iska dhiibno oo United Nations isku dhiibnay oo u sheegnay waxaan anagu diidanahay dalkayga iyo dadkayga inaan jecelnahay 7 sports marka waana la weydiiyey inaan 7 kasoo jeedno marka keligay bay noqotay inaan kasoo jeedo waqooyiga marka dhinaca dowladdii Soomaaliya waxaa la oranayay beriga ninkaasa ka mas-uul ahaa oo dee marka ilaahay waa noo sahlay anagu alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan usoo noqonay anaga waxaan usoo dhoofay nin walba wadan baa qaatay anaga Sweden baa soo qaaday iyagana waxaa soo qaaday wadamada kale ee marka China ku heleen sida Denmark oo kale Austria oo kale nin bay soo qaadatay Canada Ingiriiska saasaa loo kala qaybiyey marka way adiga shakhsiyatan ahaan adoo ka soo jooday berigaasi goboladii waqooyi imakana jamhuuriyadda Somaliland maxaa kugu kalifay oo dareentay in aad xulka qaranka Soomaaliya ka baxdaan oo 7 xubnood la goosato isla markaasna dhibaatada ugu badan aad dareentay maxay ahayd dhibkan dadku dareemayeen way aniga hadda shakhsiyan marka loo xitaa waa laga yaabaa in xoogaa mataqaanaa inaan arkay dad aniga dhow ehelkayga ama dad macnaha dee guryaha lagala baxay macnaha marka way ku taabanaysaa wixii wax adiga kugu soo socda event saasay ahayd isma ahayn laakiin Soomaali sidan ay noqonaysaa bugti waayo aniga wixii aan macnaha diidayay maanta ma ka ogolaanaya cid walba Soomaalida samaysa ama ha noqoto koonfur ama ha noqoto waqooyi ama ha noqoto Soomaaliya ama ha noqoto Somaliland ismaan lahayn waxaan u baxayna waxaan ahay weligeena ma sheegano laakiin dee ciyaartooydooda way ogyihiin iyo Soomaaliya dowladda dadkii berigaa ku jiray ciyaartooydii berigaa mataqaana ila midka ahaa oo aan u dhalan macnaha Somaliland maanta maxaan u sheegaa maanta haday yidhahdaan oo kale warba waxaa loo weydiin inaad goosato kale xitaa wax yaab le soo moog marka waa isweydiiyaa maskaxdeeda Somaliland waa tegi 2 goor baa tegi ma jeclaysan weyga macnaha ama dowladdii hore ku dhaqmaysay inkastoo tan hadda aniga aan la koobsan ma ismaaciil barnaamijka maanta sports buu hayuu inala sii durka insha Allah laakiin dhanka siyaasadda iyo Soomaaliya bartay ku dambeysay iyo ujeedada bartii aad u goosatay iyo wixii aad ka dhaxashay wixii yimid barnaamijka baan ka dhigan doonaa laakiin maanta guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena saaxiibadaadii sportiska aad baan u salaamay ilaa maanta wada sportiskii oo mar walba Facebooka imaka aad abuurtay barnaamij la yidhaahdo waa la ordo dadku wada ordaan in rag iyo dumar aad ku dhiirigeliso iyo bal guud ahaan bahdii sportiska
taageerayaashaadii faraha badnaa kuwaad adigu taageeri jirtay kuwa adigu ku taageeri jiray kuwii kaasoo horjeediya kuwaas kooxda hayde maxaad uga faa'iidaysantaa barnaamijka inta waa salaamaya inta xarus waxaa le ilaahay caafiyo inta caafimaad qabta ilaahay caafimaadka u siyaadiyo waxaan leeyahay qulubta bini aadankana ilaahay isku soo jeediyo intii dhimatana allah naxariisto way daawadayaal aad iyo aad baad mahadsantihiin inta waxaynu kusoo koobaynaa barnaamijkii koobnaa ee ballaadhnaa ee haddana koobnaa ee haddana ballaadhnaa ismaaciil caydiid Jamaica waqtigiisa qaaligaana siiyey waa mid ka mid ah rukumada kubadda cagta qaranka Soomaaliyeed beriguu jiray maantana waa mid ka mid ah dadka sportiska wax laga weydiiyo waa suldaanka sportska waxaynu ku kala degaynaa maadaama aynu ku jirno 2020 bishiisii afraad cudur corona adduunka oo dhamay afeeyey saantii uu la yimid هاي سلامتي سنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته